bini aadam oo dunida kor jooga 24 saacadood u haysta inna looga badin maayo hadday sanawaadka nolosha tahayna in go'an baad haysataa mid konton nool iyo mid 60 noolba waqti go'an baad leedahay waxay yiraahdaan waa mawlid aan takhziinka aqbalin ma kaydsamo oo hantida aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yiraahdaan laakiin waqtigu kaba mid ah waxa kaydka gala afaylatanka saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yiraahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la deynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo laakiin ugu hantida badan la saacad ma heli kara dheeraada afaylatanka saacadood buu haystaa geeridana saacad dib looma dhigi karo waqtigiisu ku dhamaanaya saadaradeed waxay yiraahdaan waqtigu waa mawlid muhaddad ah waan gelin kayd ma galo lama gadan karo bedel ma galo waad ku qasbantay inaad sarfida bay leedahay qiimihiisuna wuxuu ku kordhaa bay leeyihiin sida looga faa'iideysto waqtiga qiimihiisu wuxuu ku kordhaa istighlaalu sida aad uga faa'iideysato saacad qiimo leh iyo saacad aan qiimo lahayn labadaba waad soo maraysaa haddii guud ahaan la eegana bay dhahdaan waa muddo majhuula inta aad dunida joogayso saadaradeed waxay dhahaan qofka bini aadamka ah hantida dhabta ee uu haystaa waa inta uu jirayo hantida dhabta aad leedahay waa inta uu jiro waa ra'sulmaal alxaqiiqi qofka bini aadamka haysto إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا واحد لقى شيء إنه رنشري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك وغير نبي آدم ومال منبط هيقول لي مال إن مركي كاتك تبع قيمة ذيك كم إذا بعتك تي إذا عمر يا لشيء يا واحد إنه هيسنه وسكن ديسكاس سكن ديسكو هذه قيمة قومة له لكن nolosha marka la xisaabanayo marbu jajab ku qiimalay qoladan orda hay kala dheereeya kon xufta carara 9 jajab wa secondis wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan thaniya ama second wax ka yar ayaa wan lagu galaamo tool lagu galaamo jaayisad lagu hela ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa hadaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga waxaana cajiib ah waqtigan aynu hadda joogno galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday waa maxay marbaad cimrigii tuurtay soo maaha xagga xabaasha markaad u sii dhawaataba miyaad farxi wax qabadkuma farxaysid waxaad intaaj dad soo kale ma jiro waa mujarrad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynka leh sida qiimaha u leh ka faa'iidaysigiisu wuxuu ku xidhan yahay bay yiraahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto haddii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ah waxa uu fahmayaa garanaya sida uga faa'iideysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaali waxaan qabtaa garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwaraa waa maxay rabbi irjicuun ilaahu icil waa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaacal ku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiiyo hadduu markaa qofku bay yidhahdaan hadafku ka lumo qiimaha waqtigu uu ka lumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda way idinku jiraa qof usbuuca soo socda wuxuu qaban kara saacad walba u qoranta usbuuca soo socda waxa uu rabo inuu qabtaa u qorantay إدارة الوقت جاي شيء time management جاي شيء وينتهى وين الهدف يا لطه to do list قائمة الأعمال الطبق دون طاعة بيضة هاي
jadwaladaad ku qaban doonto aad leedahay. qodobkooda saddexaad waa tartiib awlawiyaat, priority, say kugu kala muhiimsan yihiin. maxaa masta ah inaad qabato, maxaase 50-50 ah, maxaad waqti haddaad u hesho ku xidhan, maxaa hadduu kugu dheeraado aad ka kala riixi kartaayo kanuu qaadan karaa. idan waxay dhahdaan prioritieskuna waa inay calaamadsan yihiin, colors bay ku isticmaalaan say u kala horeeyaan. nolosha dhammaanteedba jadwaladay u sameeyeen waa intaa waxa dheer bay dhahdaan tartiib alxayaa. noloshaada halkaad la maraysaa waa inay kuu ballaangaraysantahay bay dhahdaan. the coming 5 years, the coming 10 years, maxaad rabtaa inaad noqoto? waxay leeyihin noloshaadu meesha aad rabto inaad qabato waa inay planetka ku jirtaa. waqtiga soo socda maxaan qaban doonaa? idan qof baa caalim noqday iyo khabiir buu noqday iyo kan buu noqday, waxa weeyaan waqtiguu ka faa'iideeyey. classmatekiisi muxuu noqon waaye waqtigaanu ka faa'iideynin. qof kasta oo waqtigiisu uu qiimo ugu fadhiyaa nolosha waxbuu ka dhalinayaa. qofkii aan waqtigiisu qiimo ugu fadhinna dee saynuu soo jirray buu u soo jirayaa. mid aragga ku eegna waad dhali karaysaa insha allahu tacaala haddii waqtigu kugu sugo, laakiin dunida culays baad ku tahay ziyaada oo qofku buu dunida ku yahay haddaan waxba soo kordhinaynin. waa ziyaada cala alxayaa, inaad sidii ilaahay u abuuray ugu dul taagnaataa iyadoo caqli alla ku siiya awood iyo tamar waxba kaa soo bixi waayaan. waa wax liita. waxaa mawduuca laydinku dooray uma filaya inaad tihiin dadkan intellectualkii waddanka u soo socdiya ummadda ee la rabay inay wax bedelaan. waxaad joogtaan hadda waqtigii jucbada la dhaansanayay, waqtiga ahaantiina dhaansan lahaydeen, waqtiga ay idiin midho dhala ahayd waa idiin dambeeya. hadda de haddaad bakeeri noola timaadana in bakeeriyumaad laga heli, haddaad adoo booyad sida la timaadana waxbaad tari doontaa. waa saad jucbadaada u soo dhaansato, taasina waxay ku xidhan tahay waqtigaaga si aad uga faa'iidayso. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.